taliska guud ee ciidamada booliiska Somaliland ayaa waxay shaaciyeen inay ciidamada ammaanku gacanta ku soo dhigeen 2 eedeysane oo ku eedeysan inay gudaha Somaliland ku dhex faafinayeen diinta Kristanka. taliyaha ciidanka dambi baadhista ee Somaliland gaashaanle sare Faysal Xiis ayaa sidaasi saxaafadda u xaqiijiyay waxaana uu yiri wiigi hore ama wiigi la soo dhaafay ciidanka booliisku waxay soo qabteen 2 qofood oo amartiin diinta islaamka ka baxay oo haddana ah daaciin diinta Kristaanka fidinahay taasoo ninku yahay nin kor ka haya quraanka iyo fiqiga. 2 qofood waxaan ku dacweynay murtadiin iyo daaciin inay yihiin ninku wuxuu kor ka haya quraanka kariimka iyo fiqiga. cid kastoo istiraada diinta Kristaanka halka ku fiday ha ogsoonaato in ciidanka booliiska cid ka baxsanaysa aanay jirinin oo aan lagu faafin karin. 2 qofood waxaan ku dacweynay murtadiin iyo inay daaciin yihiin waxaan kiiskooda u gudbinay maxkamadda iyo xirnaanta awoodda u leh dadweynaha Somaliland. waxaan si mugla uga digaynaa kuna boorinaynaa inay ka fiijignaadaan falalka noocaas oo kale ah cid alla cidii aragtana ay booliiska si degdeg ugu soo wargeliso. Maxamed Aadan Ismaaciil Maxamed Jiglan wararka bulsho Hargeysa.